hebel ma dhahayo aniga cid walba waa ogtahay waa in laga qaadaa taliyaasha nimanka tuunka uu ku jiro waa in xilka laga qaadaa si guutidaas loo badbaadiyo beeshaan aniga aan ka dhashay ama dadkan reer shabeelle aad u dulqaad badan waay war annaga 10 qof ama 20 ama 30 laga dilo wax ay naga qaadayso male in cadaaladaas raggaas la mariyaa ka horeyso markii cadaaladda aan helno taliyaashana maxaa la yiraahdaa sida hadda aad sheegtay la magacaabo waxa waaye annaga mar walba waxaan xoogga saaraynaa cadaalad in la helo kulan wacan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan waraysi aan la yeelan doono gudoomiyaha golaha hoggaanka beelaha Biimaal oo marti nooga ah waraysigan gudoomiye Cumar Cali Axmed ku soo dhawo marka hore TV-ga iyo raadiyaha Danan bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantihiin horta waxaan salaamaa maamulka iyo shaqaalaha warbaahinta Danan TV-geeda iyo raadiyaheedaba waana ku dhawahay gudoomiye waxaad ka mid tahay hoggaanka golaha beesha Biimaal sidoo kale waxaan ognahay in magaalada Muqdisho toddobaadkii aan ka soo gudubnay dhacdo xanuun badan oo aad ay u taabatay guud ahaan beesha Biimaal in ay ka dhacday sidoo kale waxaa jiray xildhibaanada golaha baarlamaanka ku matala in ay booqdeen dhaawaca dhalinyaradii guutadii 14 Oktoobar ka tirsaneed ee ku jira isbitaalka Digfer dhaawacyadaas waxaad ku codsanayseen in dhalinyarada wixii dhaawacooda aan wadanka wax loogu qaban karin in dibadda loo qaado oo aad dawladda u dirteen fariintaas maxaa ka hirgalay maxaan idin qabsoomay horta dhaawacyadii meesha ku jiray waxaa la yiraahdaa in badan oo kamid ah hadda waxaan filayaa 3 kamid inay geeriyootay saakay u dambeysay laba oo dhaawacii cuslaa Digfer ku geeriyoodeen oo raggii ICU ku jira ahaa kuwii kalena sidooda ugu jiraan codsigaas horaan u jeedinay ballanqaada jiri uu ballanqaaday ra'iisul wasaar ku-xigeenka oo uu noogu ballanqaaday dhaawacyada kuwooda culus in la qaadi doono sida caadada ahayd Soomaalidan kale markii dhaawac uu yimaado sidaan oo kale ciidamada la dhaawaco ha ku dhaawacmaan Hiiraan ha ku dhaawacaan meelaha kale la yiraahdo Shabeellada Dhexe ama maxalada Galgaduud haddii dhaawacyada ay culus yihiin ay la gaarsiisan yihiin 10 in ka badan kuwa ICU ku jiro waxa caadadeed in loo dalbo diyaarad qalabkeedu u dhameystiran yahay ayadoo maadaama dawladda Soomaaliya ay tabar daran tahay dawladaha kale ee caawiya ama saaxiibadana la ah laga codsan jiray la qaadi jiray yaa maxalada kee u dambeeyay kan hadda la siisado maxaa yeelay waxa ugu dambeeyay dhaawacyadii macawisleydii gobolka Hiiraan ee lagu galayay meesha la yiraahdo gurigooda kuwii ka haray waxa loo qaaday maxalada Turkiga jiraan sidaa darteed waxaan rajaynaynaa in la qaado codsigii ilaa hadda lagama soo jawaabin sida maxaa la yiraahdaa ay noo sheegeen shaqaalahan maxaa la yiraahdaa Digfer in dadkan qatarta ku jiro ICU ku jiro waxay u baahan yihiin maxaa la yiraahdaa qalab maxaa la jiray ambulance qalabkeeda wadato iyo diyaarad qalabkeeda wadato yani haddii meesha hadda ay ku jiraan laga bixiyo diyaarad kaligeeda maxaa ma anfacaysan waxa la keenaa diyaarad maxaa la jiray ambulanceeda oo qalabaysan sidaa darteed xaaladda sidaas waaye man laga soo jawaabin codsi meeshan waxaan rabaa hadda ugu weyn waa arrintaas inaan maxaa la yiraahdaa aan daba istaaganahay waayo ra'iisul wasaar ku-xigeenka ballan qaaday haddana madaxweynihii dalka ku soo laabtay waa in dhalinyaradaas dalkan difaacidiisa loo dhibaateeyey ay hooyooyinkooda iyo maxaa la yiraahdaa ay kortaagan yihiin inay caawiyaan ayagaa awoodda u leh ayagaa u dhaartay in arrintaas meel la saaro taasaa ugu weyn aan u nimid waa tahay ballanqaadkiina waxaa ii muuqata in aan weli laga jawaabin madaxweynaha dalku ku soo laabtay ra'iisul wasaaraha waa soo laabtay maalinimadii shalay ahaydna waxay la kulmeen nabad sugidda hoggaanka ugu weyn Mahad Salaad haddii mar kale adigoo fariin diraya dalabaadkiina la aqbali waayo maxaa tallaabo aad qaadaysaan idin la gudboon tallaabooyinku waa noo dambeynayaan annaga hadda waxa waaye codsigaan rabnaa sidii loo sheegay inaan dadka la wadaagno maadaama eheladii dadka mas-uulka ka ahaa aan ka mid nahay una dhaxeeyo dadkii dhaawaca ahaa ciidankii soo dhaawacmay ehelkeena u badnaa iyo dawladda kuwa noogu jiro ee hadda aan tilmaamo ra'iisul ku-xigeenka u sareeyo in arrintaas aan wax laga qaban inaan tilmaano rabnaa go'aan qaadashadan waxay u taallaa dadka deegaanada aan deganay u taallaa haddii aan ka quusano dawladda waxaynu qaban weysa hadda way kortaagannahay wixii annaga aan qaban karno waan qabanaynaa oo tolkii iyo maxaa la dhihi jiray shacabkii way daba taagan yihiin
waxaan rabnaa yani inaan fariintaas gudbino go-aan qaadashadu waa mar kale noqonaysaa. waa tahay war murtiyeed ayaad ka soo saarteen maalnimadii shalay ahayd baroordiiq magaalada muqdisho aad ku qabateen. war murtiyeedkiina muxuu daarnaa? war murtiyeedkeena waxaa ugu muhiimsan horta inaan u mahad celino mas-uuliyiintii iyo saxafiyiintii ka qayb qaatay barnaamijkii la rabay in la qariyo maxaa la yidhaahdaa hoos in la dhigo loogu talagalay sida damiirnimada soomaalinimada leh maxaa la yidhahdaa ehelnimada leh ay ugu damqadeen ay u dagaalameen mahad celintooda horta qayb libaax leh ku lahayd oo ugu weyn yahay maxaa gudoomiyaha baarlamaanka sidii maxaa la yidhahdaa u hadlay saxafiyiintii kala duwanaa ee Soomaaliyeed ee u damqaday walaalahooda ee maxaa la yiraahdaa banaanka keenay inaan u mahad celino mid ay ahayd midna waxaan ku codsanaynaa arrinta hadda aan meesha u imid oo ah in dhaawacaasi maxaa la jiray culus ee dibadda loo qaado waxaa kaloo ku jirtay oo noogu muhiimsanaa in dadkan dhibaatada loo geystay inay helaan taliyaal inay helaan matalaad ciidanka inay helaan waxaa og tahay waddankan 4.5 wax lagu kala qaybsaday waxaan luminay doorkii weynaa ee direedan luminay maxaa yeelay dalka waxa waaye afarta maxaa la jiray maxaa qaybood ciidamada waxa dareemaysaa laba kamid ah in hal jufo ay haysato maxaa la jufada ra'iisul wasaaraha haysatay in qayb kale ku darsatay maxaa la yiraahdaa jufada gudoomiyaha baarlamaanka haysatay loogu daray oo doorkii beesha direed meesha uu ka baxay maxaa la yiraahdaa taas waxaa noo dheer wasaaradda gaashaandhigga taliyayaashii maxaa la yiraahdaa looma sinna taasa maxaa la yiraahdaa aan dhameeyo taliyayaasha aan codsanayno waxaa maxaa la yiraahdaa waa soo koobnay laakiin waxaa maadaama ada ay weydiisay waxaan rabaa inaan faahfaahiyo nin maxaa la yiraahdaa doorkii direed ee awood qaybsiga waa luminay midii taliyayaasha aan goboladan aan deganahayna sidoo kale dad kala taliyayaal loogu qoray annagana looma qorinaa laga dhigay sidaas darteeda in maadaama dadkan ciidanka u badan ee deegaankan degan ay codsanayaan saraakiishooda in la maxaa la jiray ay taliyaal ka noqdaan guutooyinka sida kuwa kaleba taliyaal ay ugu leeyihiin sidaasaa maxaa la jiray u badnayd iyo haddii barnaamijkaas maxaa la yidhahdaa sidii loogu arrinsan lahaa maxaa yeelay arrimaha ugu muhiimsanaan raba inaan taabto waxay tahay ciidanka annaga wax badan ugu dulqaadanaa yani soomaalidaan la qabnaa beesha maxaa la yidhahdaa beelaha soomaalidaan la qabnaa ciidankan qaranka wiilala noogu dhinto maxaa la yidhahdaa wiilasha aan maxaa la noogu jiro qaranka waxaa dhacday inay maxaa la yidhahdaa ayagoo howlgal taliyahooda u dirsaday fiiri si fiican arrintaan u fiiri taliyahooda ayagoo ciidan maxaa la u dirsaday maxaa la yidhahdaa howlgal loo diray meel khatar ay jirto khatartii haddii ay qofku dhinto diyada waxaa bixiya beeshaa bixinayso yani jufada ugu yar ee maxaa la yidhahdaa beelahan hadda beesha aan ka warqabaa yani tusaalaan usoo qaadana beesha ismiinaan ka dhashay 8 jufood waay 8 lug waay lugti ugu yar 10 qof 10 diig ka badan ay bixisay 40 sano u dambeysay yani diidii ugu yar waa 25 kun ninkaasna muusan dad ku dilin howl ay beel u dirsato ma dilin qaranku u shaqeynayay qaladaad markaas jiray ama nin alkuliista ama nin mooryaana loo diray dagaal meesha ka dhacay dad ku dilay diidayaan bixin waxaasaan u dulqaadanayna sida waxaan rabnaa dhib kale inaanan qaadanin ee dheefta dadka maxaa la yiraahdaa ay haystaan inaan qayb ka haysano dowladnimada dhiskeedan maxaa dhibaatada u ogolnahay laakiin dheefta inaan qaadano war murtiyeedka waxyaabaha ugu muhiimsanaya kamid tahay in taliyaal in la helo war murtiyeedkiina waxaa aad ugu soo celceliseen in taliyaal beesha la qaato oo aadna dowladdan ay ka gaabisay maxaa xilligan kusoo beegay in taliyaal ay codsataan waxaa xilligan kusoo beegay dhibaatadii hadda dhacda horta dhibaatooyinaa ka horreeyey laakiin waxaan fiirinaynay wax la isla qabay ahayd laakiin tan target gooni ay noqotay tusaalaan ku siinaa gobolkan shabeellada hoose ma rabin daraata maraan hadlay maxaa la yidhahdaa hoosaan maxaa la isaga dhigay laakiin dad badan waxaa arkay warkaas oo si kale u bunbuuninayo beeshaan aniga aan ka dhashay ama dadkan reer shabeellada hoose aad u dulqaad badan waay waa dulqaad badan yihiin maxaa yeelay guutadan 14 Oktoobar saraakiisha hogaaminaysa waxay noo sheegeen markii ururkan qaasatan waxay yidhahdeen markaa inta imaan wax naloo sheegay yani guutadan ama ururkan dib looma celinayo maxaa yeelay hal beel ay u badan yihiin taa bedelkeeda guut koowaad hadda saaladan ku soo qaato guutooyinka oo xamar ka bilow ilaa iyo buurakaba inta ka qaad ilaa baraaba degan waxaa maleynayaa guuto toddobaad guut koowaad guut lixaad iyo guutada 14 Oktoobar meesha jirto guuta maxaa toddobaad waxaa Axmed Gaashaan madax ka ah nin habar gidir waay guutada maxaa la yiraahdaa koowaad qataata mursada madax ka ah guutada maxaa la yiraahdaa lixaad laba afla ka ah
oo baraab ilaa jalbood joogto oo weli jufo khaas ah ama qabiil khaas ah u badan yihiin yani dadka kale waxa waaye hal iyo laba waa yani guutada inta ka kooban tahay andhameeyo guutada 14 Oktoobar laftirkeeda abaanduulaha iyo taliyaha waa maxaa tale waa beeshaas maxaa tale beesha habiyo waay intaasaan ku dulqaadanaa yani inaan annaga wax helno in cambaar gooni maaha dalabkeena waaye ciidankana in la yidhaahdo beela u badantihiin toddobada guuta aan kuu sheegayn ama guutada 40 aan kuu soo tiriyo gobolkan jirtana beelahaasi u badan yihiin ayagana madax ka ah intaas oo kusoo dulqaadanaya laakiin hadda waxaan dareennay aamusnaantaas iyo doorka madax la'aanta waxay sababtay in si gooni dhallinyaradeen loo beegsado si arrintaas loogu baxo ayna u noqoto mid soomaalinimada lagu dhisaayo mid ciidanimadan dhismayso ogtaa national armiga culays badan ahaayo cunaqabateena saaran waxaasoo dhan waxaa loogu bixin karaa in transparency la helo dadkana ay aaminaan dowladnimada in la aaminana in wax la qaybsado sida aan carta kusoo heshiinay waxay ahayd haddaan 5 shay kala qaybsanayno 5 shay inaan qaybsano waxaa power sharing u ahaa wixii waa la lumiye maalinta ka dambaysa haddana meeshan ay maraysaa yani taasaa keentay annagoo dulqaadanayno waxaan codsanaynaa in guutadan 14 Oktoobar maxaa la yidhahdaa horta shaki weyn dhalinyarada ka jiro yani waxaana arkay yani in oo ragga qaarkeed ay tuumaayeen in ay ka qayb qaateen ayagoo madax ay ka qayb qaateen dhibaatadan meesha taallo marka hor dhacaya laakiin waxaan rabaa haddii shaki uu galo qof ka mid ah dadka guutada hogaaminaya awal waxaan codsanaynaa in xilka laga qaado oo aan guutada magaceeda laga bixiyo maadaama eedaysana uu yahay uusan mas-uuliyaddaas sii joogin aan codsanaynaa hebel ma dhahayo aniga cid walba waa ogtahay waa in laga qaadaa taliyaasha nimanka tuunka uu ku jiro waa in xilka laga qaadaa si guutadaas loo badbaadiyo maadaama ay ku dhawaaqdeen taliyaashan in beeshiina gaarka ah loo magacaabo waxay ka dhigan tahay guutooyinka hadda aad ii soo sheegtay ee 7 iyo 1 iyo 6 oo ragga aad ku soo xustay ay hogaanka u hayaan iyo 14kaba in gabi ahaanba lagu bedelo beesha u dhalatay gobolka Shabeellaha Hoose hadalkaaga sidaas saas ma annaga sidaan hore kuu sheegay waa dulqaad badannahay ayadoo joogta aniga hadda laba aflo ka culays uma qabo dadaa waxaa arkay meelaha dhahaya bargidaada dhacbaya abgaal waxaas ma jiro dadkan soomaalinimada ogolnahay dadka walaalaheen inay xil qabtaana ogolnahay laakiin waxaa diidaa aniga waxaan noqonaa adina ma noqon kartaan diidan amaane dadkaas ayagoo maxaa la dhihi jiray gobolkaas waxbay ka noqon karaan maxaa la dhihi ciidamaday haysan karaan laakiin waa inaan ursinaanaa mas-uuliyiintu waa inaan bawrshan waa inaan helnaa codsigeena maaha hebel waxa laga qaada maaha waa in annaga wax helnaa annaga noomo qof kale wax laga dhigo saraakiisha waa inaan iska dhex aragnaa maadaama gobolkeena ay tahay ma dhahayaan beledweyne hala magacaabo oo hiiraana looga diro ma dhahay maalinimadii shalay ahayd wasiirka gaashaandhigga cabdiqaadir maxamed nuur wuxuu hortagay golaha shacabka baarlamaanka waxaa wax laga weydiiyey dhacdadii kulliyadda jaalisiyaad ee guutada 14 Oktoobar sida dad badan ay daawadeen adigana aad qayb ka tahay dadka daawaday waxa uu ku sheegay in waxba aan laga weydiin karin dhacdadaas goobtan uu tagay markaas in heshiis dowladaha dariska iyo dowladda Soomaaliya ay galeen ay ansixiyaan baarlamaanka taasoo buuq fara badan ka dhalisay baarlamaanka dhexdiisa sidee kula muuqataa marka hogaankii sare ee ciidanka qalabka siday ee dowladda Soomaaliya in arinta kulliyadda jaalisiyaad ka dhacday guutada 14 Oktoobar uu sidaa u hadlay horta waa maxaa la yiraahdaa horta waa ka xumahay midna maxaa la yiraahdaa golaha baarlamaanka ragga ku jira ee sida fiican ugu falceliyay gabdho iyo wiilalba way mahadsan yihiin horta ayaan darro waay dhibaatadan dhacayso asagaba uu ku faanay ragaan saan yeelna uu leeyahay horta waxaan leeyahay asaga anaga horaan u sheegnay marna haddana waan ku celinaa wiilasheena inay dhintaan meel walbay joogaan oo dalka ayagoo difaacaya inay dhintaan sharafay noo tahay laakiin nin sidaas ah khayr mas-uulnimo u hadlaayo oo u maleysay mas-uuliyaddu waa kala sarreysa dhibaatada ugu badan Soomaaliya haysato lagu eedeeyo waxaa ka mid ah cunug 25 jir oo jarnaal ah yani ninaan khibrad ciidan lahayn oo wasiir gaashaandhig ah taasaa sababay aan waxaan filaa madaxweynaha dhiiqada la geliyay taas soo muu eka maadaama hadda adiga aad codsanayso in taliyaal lagu magacaabo power sharing soo ka mid ma 20 jir in loo magacaabo general sida maya arrintaas waxa waaye dad professional ah jiro ragga inay soo maraan waa qeybaha kala duwan iyo ciidamada inay soo maraan laakiin ninkan wasiirka ah ciyaal TikTok ah xasan maxaa la jiray top groupkiisa ku jiro ma aha in maxaa mas'uuliyadda heerkan loo dhiibo ma aha waa in maxaa qeybtaas uu ku jiraada ade waxaan ani shalay sidoo u hadlay markaan arkay waxaan leeyahay maxaa dowladdan meelaha xasaasiga ah dalka meesha laga difaacayo wasaaradda gaashaandhigga ee dad mudan ah la geeyo dad ciidanimo ku soo jiray dowladdii maxamed siyaad barre joogay oo tababaro fiican leh oo khibrad ciidan leh maxaa la jiray sida ciidamada loogu damqaday yaqaano
sida loo maamuso yaqaano in loo dhiiba aan codsanaa horta ani maadaama aan gacanta igu jirin ani jawaabtiisaasaan ka dhigaa ninkaas ma mudna in wasiir gaashaandhig u ahaado waa tahay adiga ka hoggaan beelaha biyomaal ahaan cumar cali axmed haddii la qaadan waayo talooyinka aada usoo jeediseen dowladda federaalka soomaaliya iyo laamaha ammaanka maxaad sameyneysaan meelgudbo horta soomaalidan hore saan kuugu sheegay waa beelo isugu tegey maxaa la yidhahdaa dowladnimadan dhinac ka dhistay dowladdan soomaaliya annaga federaalka maadaama dowladda federaal ay tahay koonfur galbeedaan ka mid nahay markii la dhisanayayna waa ogeyd waxa waaye wadatashi iyo dagaal la galayaa lagu geeyey maxaa la yidhi beedhabo annaga waa tashanaynaa sidii noogu mudan aan sameynaynaa in wiilkeena diidiisa aan dhiibano $200 uu ku dhaabacmo oo maxaa la jiray oo dan qaas ah ama dad qaas in loogu daneeyo dowladnimada aan maxaa la jiray oo aan loo sinayn haddii ay soo baxdo dadkan shirweyne isugu imaanayaan sida shalay warmurtiyeedkeena aan ku sheegnay waa ka tasanaynaa sida aan yeelaynay meeshaan u guurayno annaga ka golo ahaanna waxaan diyaarinaynaa barnaamijkaas inuu dhaco laakiin ka hor waxaan rajo ka qabaa in dowladnimada ayadoo loo naxayo madaxweynaha mas-uuliyaddiisa u qaato maxaa la inta uu dalkan ka talinaayo sidii shalay dadkii jooga u eedeynayay annaga uma eedeynayno waxaan qabaa inuu maanta fursadu hayaa dalkan asaa aabbo ah dalkan asagaa maxaa la yidhahdaa taliyihii u sarreeyay dalka ah in ummaddan isku hayana maanta asaa keeni karo kuwa waxaan dhanka shaqaynayan sida aan waraysi hore ku sheegana madaxweynahan cambaaraynaya mas-uuliyaddeennaan qaadanaynaa way isku tegaynaa wixii markaas noogu mudan tolkaa ka gaarayo annagana waxaan nahay fududeeyaasha arrintaas waana daba taagnaanaynaa waana maxaa la yidhahdaa waxaan rajaynayaa in maxaa la yidhahdaa sida hadda oo saadaasha ay tahay inaysan noqon oo la daba qabto waxaa soomaali tirahda haddii caanadaatan waa la daba qabtaay xaaladda sida hadda ee tahay in la daba qabto aan rajaynaa waana codsanaa in la daba qabto ciidamadaana dibadda loo qaaday intii maxaa la jira hartay waayo waxay tusaale cad u yihiin dayacaad kuwa maanta ayaga ku jiro dhan waxay hadda codsanayaan in ay dareen ka qabaan sida kuwan loo maareeyey ee ayaga dhan ay ku qaran yihiin mana jiri doonto haddii aan kuwan la dayaco inay sii dhisnaato maxaa la jira kalsoonida iyo maxaa la jira iyo qabkii ay ciidamada qabeen kuwa ka soo jeeda goboladan ma sii jiri doonto laakiin waxaan codsanaa in arrintaas la xaliyo guntii gunaanidkii waraysigeena adiga ka guddoomiye hoggaanka beelaha biyomaal cumar cali axmed haddii codsiga hadda aada jeedinaysaan ee ah in taliyaal loo magacaabo beesha ma laga yaabaa in arrintan ay halkaasi ay kusoo afmeeranto oo ku aamustaan maadaama taliyaal nila magacaabo horta taliyayaasha waxaa ka horeeya wadanka hadda dhibaato dhacday toomanayaala jiro oo waxaan rabnaa cadaalad horta in la helo cadaaladda in la marsiiyey intii dhibaatadan geysatay sida hore aan u codsannay qof walboo garaad leh oo soomaaliya uu codsanayo in cadaaladdaas raggaas la mariyaa ka horeyso markii cadaaladda aan helno taliyayaashana maxaa la yidhahdaa sida hadda aad sheegta la magacaabo waxa waaye annaga mar walba waxaan xoogga saaraynaa cadaaladda in la helo taliyayaasha la magacaabana waxay ka mid yihiin taliyayaasha soomaaliyeed ay ka mid yihiin ragga hadda aan ku sheegay ka mid yihiin ma ka aamusi doono waxaan rabnaa aan codsanaynaa welo shalay warmurtiyeedkeena ku jirtay maxkamadeynta kuwa la tuhmanay inaan goobjoog ka ahano ee loo baahiyo aysan noqon wax mugdi lagu baahiyo aysan noqon waayo waxaa jira tuhun ah shakhsiyaad oo maxaa la aan isdifaaci karin in dusha laga saariyo kuwooda maakiriinta waaweynna meesha laga bixiyo si meesha ay u baxdo qofkan la eedeynayo ee eedeysanaya inuu banaanka yimaado meel uu runta ku sheegi karo ninkii habeenkii garaacaya haddii aan adeerkiisa uu ahaa ninka wax asu u soo diray ama la shaqeeyey uu soo agaasimay meeluu ku ciilbaxi karaan rabnaa yani waxaan warka ku koobaa in si public maxkamadeyntooda loo baahiyo cadaaladana saas waaye inay mas-uuliyiinta golaha noogu jiro maxaa la dhihi jiray dadka kale ee maxaa la dhihi jiray mudan ehelada ah kulli in laga qeybgeliyo aan codsanaynaa haddii taliyaal la magacaabana saa sheegto waayo dadkan iyo dalkan dowladnimada anagoo waxba aan ku haysana difaacaynay ayadoo dadkan hadda dowladnimada haysto adeeyaasheena mid ka midna waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto ergaas war annaga 10 qof ama 20 ama 30 laga dilo wax ay naga qaadayso male waayo waxaa jirta dagaal 1900kii hadda ma aha dowladaan la diranay dowlad gumaysi dagaal waxaa jira sadii axad oo 1 wiil oo biimaal ay dhimatay yani 1 wiil waxaa ku jirta 10 wiil buug ay ku qoran tahay notan inaan sheegayo 10 wiil isku hooyo isku aabe war beeshaan dhimashada waa taqaan dadka og ee mucaaradka ee ku dhaxmilan dowladda
waxay rabaan meesha keliya dadka laga shidi karo waxa waaye beesha biimaal iyo dowladnimada in laysku shido tan hadda dhacayso waay maanta waxaad arkaysa dadkii oo kacsan oo dhahay xasan wax ma ka samayn xasan madaxweyneheen waaye waa jecelnahay haddii wanaag aan ka helno waana mahadsanta soo laisma dhihi karo ereygaas si kale haddaan u dhigno farmaajo waa ninka keliya guutada 14-ka u aasaasay magaalada markana inay difaacdo ugu talagalay oo hal beel ciidankaasi ku aasaasay sida hadda wararka qaar la sheegayo waa taas dacaayad waay annaga ciidanka si waxaa afwaajina u galna anaga waayo ciidanka dalkeena waa la guway haddaa qabiilaan la dirinayn shabel isteedaan la diranay dowladdii xasan sheekhaan la diranay shabaabaan looga bedelay shabaabaan la diranay xamarka bilow ilaa iyo maxaa la boolo ku geey tuulooyinkii ku yaalla waa la gubay dadkii xamar ay soo galeen ciidan la wada noqday markii ciidanka la qoraayo safaan ku jirnaa laakiin waxaan ka hadlaa ereyga kale waxaan ka wadaa dadkeena qoryaheeba dhigeen qoryaheeba gadasha bilaabeen qoryaheen iska gadaan ay bilaabeen yani dowladnimada iyo media sida loogu bulbuuniyey yani okay aad u mahadsan tahay nabdoon cumar cali axmed waa ku mahad celinaya mar kale sidoo kale waa mahadsan tahay